على جبين سعادتي وأفكاري، تجري الحروف بأشواق وأزدان، هذه هيا قد سرت للسعد في أمان، تروي الجمال بألفان وأطيان. Now and press the bell icon. Never miss an update. هلع Somali TV subscribe please. السلام عليكم وإذن سلام دمانتين أصحاب دولة Somali TV. muuqaalkan like fara badan saara. sheekada waxay ugu dhacday 2 sano ka hor xaafadeyda iska joogay. habeenada kamid ah waxaa u baxay inaan shopping soo sameysto supermarket aaday caashakiin. kadib meesha waxaa rabay wax inaan ka gato, qoftaana soo hor istaagto waxaa jecesha qaada anaan ku karnaa. war qoftaan maandho cadan iyo timaa cilaan kale maxay ahayd ma itaqaana meelaha fiiri qof kale inay wacaysa u maleyn aqoon bay imaleydisa waxay ugu karnay mise waxaa ogtahay guriga kaligay inaan degana. aniga yaab su'aalo fara badan isweydiiyey. ugu dambeynta qoftaan waa ka helay way soo jeedatay. mara waxaa is iri brand ma lagu sameynaa dhinacyadan fiiri kaamira ma meelaha ku xirxiran. qoftaana aada uga helay waxay bilowday alaabta inay ku rido meesheedii. anoo isaga aamusa way chance ay ahayd intaanoo sana soo noolaa bilaa lamaane. markaa isdhahay qofti kugu habooneed waa heshay gabadhan waxaa la dhahaa Caasho. markii dambe waxay bilowday inaan isoo raacno guriga imaanay. markaa guriga imaanay kadib gabadhii raashin kala duwan ayay karisay. ana waa la yaabay waxaa is iri qoftaan waxaana cunto umaadan dirine maxay waxaana cunto u karinaysaa. intaasoo dhan wajiga iga raadsanaysay. markaas waxay bilowday inay kariso kalluun iyo qudaar iyo cuntooyin kale suugooyin kala arag weligaa cunto aan cunin miiska soo dhigtay. gacali ku baashaalada iskale quruxee cuntadan way badan tahay yaa cunaya waxaan oo dhan. adiga cunaysa wajiga dhan ii bedelay. maandho dhale aqoon ma ilayd horta cuntadan dhan waa dhamaynaysa waxaana cunto way badan tahay mawaalantaada calooshaada mooyintaa walaale. waxay bilowday baastay karisay baastada oo aad u weyn in afka ii gelis. aniga xataa waa la qabaa biyana ima siinin. sidoo kale waxaa dareemaa afka inaan ka gubanayo ma aqaan waxay ku dartay maandho cadaan. tuf walaale maxaa kaa qaldan adiga cuntada maxaa ku darta maxay saan ugu dhadhamaysaa ma waxaas aniga igu darta cuntada yari. haa waxaasan kugu dar naamwaalatana may dil rabtaa. markaas waxay ugu tiri afkaada wuxuu u urayaa naaga fara badanaa shumisa horeya saas darteeda waxaan kugu dara. wah maxaa kaa qaldan naagtaa rabaa shuminaada maxaa kaa gala waa inaad dhimataa maandho dhale. aniga waxaan dareemay qoftaan in maskaxda ka jiranta isla markii waan soo orday si aan nafteeda u badbaadsado. dhinac waxaa u soo socday banaanka. markaas ay igu tiri waryaa intee u socotaa meela aadaysi ma laha. aniga isla markii 911 wacay booliiska war iga soo gaara gabadha xun ay dil rabto mindiyayna wadatay xataa waxaa ka xabsaday mindida inay igu soo tarto. markaas ay igu tiri intee u socotaa waryaa aqoon ima lihid caawa inaad dhimataa. waryahay kaale lugaha haddaana kaa jarjarin maandho cadee soco aqoon ima lihide. qoftaan waxay bilowday inay soo ceersatay ilaa amarkiis gaariga ambulanska oo meesha maraya ku booday. isla markii haddaana afka aan ka tufilayn baastadaas oo ku dhiman lahaa waayo shaamba fara badan ay ku dartay nafsadeedana halisi ku ahaan lahayd. booliiska wax walba u sheegay. booliiska waxay yiraahdeen gabadhaas nin adig ku eegi kugu qaldays ma fahantay waana sax ninkan uu yahay marka saaxiibkeed wuu qiyaanay naag kale ku qiyaanay saas darteeda supermarketka markay igu aragtay saas u dhahday. isla markii waxaa lagu soo xirmaanay koobi waa balan inaa meeshaan aan ka baxo adna haddaa ku daayo hooyadeyba 9 bilood igumay dhal. aniga habeen walba waa ka fikira waxaa isdhaa qoftaas noloshaada halisi ku ahayd waana qisa xanuun badan oo dhacda asxaabi like saar. sheekadan waxay ku dhacday macalinkeena aniga umay dhicin 1980gii ahayd markuu yaraa xaafaduu joogay. isla markaa asagoo iska daawanaya kaatuun iyo waxyaalo kale gurigaa lagu soo qaraacay. guriga marka lagu soo qaraacay wuu kacay suu albaabka u furo waayo wuxuu dareemay shanqarta albaabka. isla markii wuu soo kacay adi markuu imaaday dhinaca albaabka daaqadii uu ka fiiriyay wuxuu arkay nin cabsi badan
waryahay seetaan fiicantaa iga fur albaabka. Aniga cabsida ninkaana albaabku ku dhowaa. Markii dambe ninka wuxuu igu yiri waryahay waxaa u baahanahay waraaqadii qalin sax maxaa kaa caawiyaa dhaqso ii soo qabo. Aniga isla markii waan soo cararay waraaqadii qalin aan u soo qaaday oo u keenay hoo saaxiib anoo albaabka xiri rabo lugtiisu soo geliyay albaabka. Waraa maxaa damacsanta markaasuu igu yiri inaan gudaha soo galaa rabo waraaqada qor rabo. Anigana markaas waa yaraa si fiican uma fikiraynin. Ninkii markii dambe gudaha u soo ogolaaday inuu soo galo maana ogeyn inuu tuug ahaa ninka. Markii dambe ninkii si waraaqada u qoray qaar u haleynayay wuxuu dhahay waa baxayaa albaabkii aan ka xiray. Isla markaa taleefankii soo dhacay ana waraaqadiisa intaa soo qaada tuuray kuwa haleeyay. Aabahay soo caabo seetaan fiicanta wiilkayga haa fiican aabo xaalad goorma imaanaysa aabo. Isla markii albaabkii lagu soo qaracay aabahayna wuxuu igu yiri hore albaabka soo fur. Dhinaca albaabka aniga u soo socdo oo albaabka markaasaan u furo waaba ninkii war ninkaan muxuu damcay oo yariiso seetaa inaan soo galaa rabaano. Haddaba ninkan wuxuu rabay waraaqadihii aan tuuray inaan siiyo isla markii guriga gudaha igu soo galay aniga naxdin ha cabsanin yariiso ha cabsanin bis waraaqadii uu fiirinayay. Aniga marka aabahay la hadlo aabo ninkan dhowr mar oo igu soo laabanaya inuu dilo rabo oo aabahay ula hadlay taleefankii ago ilaa ninkii ay jiray. Aniga wuxuu damacsanaa waa fahmi waay ilaa hadda. Aabo wiilkayga ha cabsanin orod kor fuul. Isla markiiba waa soo orday aabahay hadalkiisaan qaatay. Aabahayna wuxuu yiri aniga hadda imaanayo carar. Taleefanka waa iska dhigay waa orday marka qolkan ku orday. Qolka hoostaan ka soo xirtay waa balan ninkaas aan dilo. Bis ninkiina wuu cararay anigana qolka hoos ka soo xirtay aabahay ku sugaa qolka. Aniga waxaa is iri ninkan muxuu ka damacsanaa talow. Haddaba sheekadaas markuu macalinkeena inooga sheekeynaa wuxuu yiri isla markii horta ninkii waa la xiray laakiin habeenkaas hadduuna aabahay soo wici lahayn waa la dili lahaa waa dhiman lahaa waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabay Holac Somali TV like far badan saara subscribe na dhaha love you all in the world Ramadan Kareem.